miya udugle sida ubaxa allayleheele ebow maqada nalal uguba arana allayleheele ebow maqada miya udugle sida ubaxa allayleheele ebow maqada. بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داودياشنا بيشكا راديو قدو يا وليبا يوتيوبكا بلك الصعد نجد داونيسان وحان لنا مركلة ومحسنتهين وحا إلى جوجو نودون آدم فارح دخل قضياشا aad ka markaasi looga yaqaano gobolka Gedo gaar ahaan degmada Dolo Soomaaliya oo kamid ah degmooyinka markaas taariikhiga ah ee ku yaala gobolkan Gedo waa degmooyinka waxay kamid tahay ugu facaweyn ee gobolkan taariikh fara badan oo kala duwan ay degmadan leedahay Aadan Faarax Dhuxul waa oday in badan ku soo noolaa degmadan Dolo Soomaaliya waxa uu marka soo noqday gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka ee degmada Dolo Soomaaliya ayuu barisamaadkii soo noqday gudoomiyaha dawladda hoose ayuu soo noqday oo dawladdan hoose degmada Dolo Soomaaliya boosas fara badan oo hadda ku yaala oo lagu ilmo dhalay oo ilmihii lagu dhalay hadda ay konton jir yihiin ayuu asagu xariiqay oo markaasi uu gooyay taariikh fara badan ayuu degmadan markaasi ku leeyahay nabadoon Faarax Aadan Dhuxul isaga ayaan ku soo dhaweynayaa uu iskiin bari doonaa kadib waxaan ka wareysan doonaa taariikhihii kala duwanaa ee degmadan soo martay marka la eego xilligii gumaysiga xilligii barisamaadka dawladda kacaanka xilligii burburka iyo hadda oo markaasi aynu joogno ayaan ka wareysan doonaa haddii ay yiraahdo nabadoon aadan ku soo dhawow beeshka radio Gedo waa dhawahay waa mahadsan tahay waxaad u bixinaga siisaa bal waayahaadii degmada Dolo Soomaaliya xilligii aad degmadan waxaad ii sheegtay adoo wiil yar inaad degmadan askari ka qoratay dawladda hoose waxaad ii sheegtaa xilligii deegaankan aad soo gashay iyo xilligii aad askarinimada qoratay bal warbixinaasi 1965 ayaa degmadan Dolo waxaa la qaato la qoray askari dawladda hoose 65 horena ilaa gumaysiga waa soo joogay laakiin shacab gumaysiga sidaan intaas Dolo ayaan joogay bulshada u shaqeynayay marxalado kala duwan oo mas'uuliyad ah waan soo maray oo kamid ahayd yani 1985 waxaan macnaha la magacaabay dhismihii gudiyada golaha shacabka degmada gudoomiye ku-xigeen ayaa la magacaabay isla markaas waxaan ahaa gudoomiyaha dhulbixinta waxa kaloon ahaa gudoomiyaha guddiga kormeerka xisbiga xilliga kacaanka darajooyinka aan soo maray macnaha waxay ahayd sargaalka kaydka oo ciidamada guulwadayaasha waxaan ka soo baxay dugsiga Afgooyo oo xilli waqtiga Kuubaanka uu haystay waxaan galeynaa marka intaasna Dolo baa joogtay maanta ilaa xilligaas aad sheegayso 65 iyo kasii horeba xilligii gumaysiga halkan aad joogtay waxaan wareysigan ku qaadaynaa beerta xurriyadda ee degmada Dolo Soomaaliya ayaan ku qaadaynaa dhinaceena dambe ama gadaasheena dambe waxaa ku taala taaladii taariikhiga ahayd macna fara badan shacabka degmada Dolo Soomaaliya iyo shacabka Gedaba oo ugu markaasi ugu dhisan bal xilliga gumaysiga hadan aadno xilliga gumaysiga wadankan uu qaybsana waxa Ingiriiska yaa Soomaalida la qaybsaday yaa Ingiriiska la qaabilsana koonfurna Talyaani koonfur Talyaani marka 1935 waxaa dagaalamay asaga iyo Itoobiya Talyaaniga iyo Itoobiya dagaalamay ciidamada Talyaaniga macnaha waa Soomaali ciidan cadaan oo waa yar yahay macnaha Talyaani halkaas markuu arday sababa joogo Axmaar laga adkaaday xaggana Yaanyuuki uu joogo dhankan Kenya Yaanyuuki uu joogo Ingiriiska oo guutooyin Sawaaxili ay wato yaa waxa ka soo degay Goobweyn xeebtu soo qaad Talyaani marka wuxuu noqday burjineeri maxabiis buu noqday go'doon bal galiyay go'doon macnaha wadadana la soo maray xogaga cadaanka ah Soomaalidina wala walba ayagoo hubkooda waxay aadeen goboladooda iyo degmooyinka meelay ka yimaadeen Ingiriis baa marka
يا ودك كلا وريق يا لا وريق تلياني ولا قاعد كذا talyaani waa laga adkaaday xamara lagu shubay xamar markii la geeyna maraakiib lagu shubay Roma loo diray waa baxeen dalka Soomaaliya waxa la wareegay Ingiriis baa la wareegay degmada dowladda Soomaaliya markii waxay ahayd deegaanadii la qabsaday markii loo adkeysan waay macnaha gumaysiga 1943 ilaa 44 adigoo 43 waxaa la abaabulay odayaal baa isu tagay oo degmadan uu ka mid yahay Maxamed Yuusuf oo sekretariga laagada markaas laaga ma jiro laakiin kulub waxa la jiri asaaska kulub qaabkii u shaqeynaya inuu ayagu gobonimo doon gulubka waana qarsoodi oo inta xafiis furta wada hadla ma ah oo banaanka soo istaagi kara si fiican gumaysiga lagu jira warka subaxyaha kamida warkii waa loo sheegay in wala abaabul ay ku jirto ay degmada wado ku jirto marka dadka dhan waa kulub markaas subaxyaha kamida marka idaaradii laagada gaalkii jaajuuskiya galay wixii galay soo xaabi halkaan ku soo xiray si fiican labarkaada saldhigga booliska naga dambeeyay iyo ku soo xiray ninka taaladan loo dhisay waa Cabdi Waahid kidigaas uu degan yahay buundada dhankeeda kale oo ayagoo waa badan yihiin Itoobiya ma jirto markaas Itoobiya ma jirto dalkan Soomaaliya ilaa jigjigo Soomaaliya halkaas uu deganaay warkii idaaraduna kamid wuxuu macnaha loo sheego maqli laagadi inay xirxiran yihiin سيف دير وودن جري هي قال كهلكان هذا دبر كذا مشان دم علن كمعناها ماشي بيها سعرن علن كتاغنا هيا علن انجليزي كتاغنا اسغا ماشان غنجيل waxaa madadeen hal ganjeel weyn oo saro oo laga galay yeeyna orodku soo hay farax gees ugu soo baxay farax ali gulay gees ugu soo baxay sifan waa labada nin oo labada nin oo halkan la dhigaa doono oo lagu magacdari doono xaafadaha degmooyinka haya marka asaga seefu wata faraxna garuuno wata yey u socdaan marka Kenya gaalka u socdaan gaalka xagu jooga halku uu taagan yahay soo kuma dhihin bartaha askar dhinaciisa taagan haya oo wardiyenis askar biliis oo kulub hadana oo Soomaali oo kulub markii lagu macnaha soo baxeen askartii dalbada kuridii soo koobayna marka taalada waa loo wada dhisay magac laakiin waxa lagu magacaabay waa Cabdi Waahid lagu magacaabay waa ninka dhankiisa kale taariikhas dheer ee rag Soomaaliyeed ay u dhinteen bay soo martay marka degmada dowladda Soomaaliya aan ka dhaxgalay degmada dowladda Soomaaliya kula xilligii la asaasay oo degmo ahaanba loo degay ma xustaaday aan ku sheega marka waa imaan doonaa Ingiriiska marka wadankii asaga la wareegay muddo gumaysigiisii uu iska wato halkaas markay joogto 1950 daaqiliyana la siiyay sifaan oo Talyaani 10 sano inuu xukumo inuu 10 sano wadanka xukumo heshiis la galay Talyaani inuu 10 sano la siihayo intuu yimaado Ingiriis waqooyi aaday xaqu aaday كوفرنا تلياني كلب ولا جبح كلب ولا جبح SYL صباح SYL صدق أي توانك SYL إن لا ولا رح يا صباحي SYL بركة وجوبين بدون كن سجال بقول كنتن إيه سديد وضع بالأبابول سفع حلقي تلياني الله قبتنا لو سنة كارت لو سنة كارت وضعن كمركز تلياني دقمدان وكل حلقة أنا كده حقلي دقمدان وكل حلقة تلياني جيو قدومي وهي أقوم قاعد دولو معناها صدح نين ومال معناها ومنشيبيا وسيندكا معناها سيندكا واسق وسميستي سميستي سفيعة صدح حزمت كليا مقعبة أديكو صدح دقمدي بس صدح صدح واقع ما كنتوني سديد ولا جارة أيوة كنتوني سديد إلكشن كيا لا جارة دورة شدي هيا سيقول عاد دورة شدي معناها ودنك حزبية مركز هيست هيا iyo 20 xisbi oo control leega iyo Talyaaniga 20 kaas laagada meelaha la dagaalamayso laagada kaliya kuwan kale xisbiyaan kale inta badan wax Talyaaniga wato marka laga reebo bangiga intuu u furo lacag ku qarqira oo macnaha 1900 konton iyo sagaalkii markii mareys electionkii soo dhawaatay doorashadii ayaa soo dhawaatay doorashada markay soo dhawaatay wadankana Talyaani iyo xisbiya haysta
talyaani SBS xisbiyada oo talyaaniga u shaqeeya leega gacanteeda waxba kuma jiraan kumataata shantarale oo Israa'iil oo xamar yaa fariisatay waxaa la yiri maxaa tale maxaan hayna gacanteena wax kuma jiraan tala keena waxaa la yiri anta hadaysaanta talyaanina uu rabo 10 sano dambe oo gumeysi inuu nagu sii haysto oo kiliga asayl afgooyo ku yaala intuu Soomaalida intuu seexiyo ku soo korsocdo soo gudbay Soomaali inta la seexiyo oo seexiyo lagu gudbay isku gudbay talyaaniga sida carro jawaan lagu soo kale nin baa wadankan talyaaniga hataa ka awood weyn wadanka meena Alta Juba iyo Bassa Juba la yiraahdo Alta Juba iyo Bassa Juba la kaliya Jubada kore iyo Jubada hoose Soomaa asaga waxa soo bixi marka talyaaniga marka xurba talyaaniga marka ay xurba xisbiyaan uu sameeyay xurba inuu xisbi asaga uu wato u soo baxo oo 10 dambe wadanka sii xukumo oo gumeysan ugu sii haysto asaga hoos jooga u keeno leegana waa goobnimo doon oo marab waxa loo yeeray nin wadanka ma talyaaniga aska amar qaato laga amar qaato Cabdiqaadir Soobe laba farooda loo taagay Cabdiqaadir dadkana sida dadkan oo kala ma had iyadoo la ishalayna yaadana saaxiib la yahay saad la soo nacay ma ahayn lama kala fogeyn laba farooda loo taagay waad ogtahay anaga leega goobnimo doonana ahayn gacanteedan wax kuma jiraan in calan xor ah oo Soomaali iyo dal xor ah inaan helno iyo in talyaani gumeysigiisa Soomaali aan ku noqon iyo in dawlad calan la noqon labada mid ogaan Cabdiqaadir Soobe taariikh buu leeyahay nin Soomaali ah haddii ba taariikh laga qoraa taariikh buu leeyahay wuxuu hoosta ka xariiqay dal xor iyo calan xor ah baydhabo ka bilaabay صوبي ومدحوين عملوا كورميرا وراق أفر جيس جيس كان علامة اللاجدة SYL أي كقرنتها كيان هل وانس لها الوراقة هويا والدربية يكون دقنت قلنا محيليه لبا سيفودو كلا جد هي حدك دوشة كسار سيفلي اللي يرده سيفلي كان وكرول كSYL كان ديق دوال قيبي أو ما لها جدد يعني مركز سوى له قيبي صندوق دوال سوحري صندوق أهري أول فرع doorashada yaa galay marka leegadii xisbiga SYL iyo xisbiyada kale iyo talyaaniga watay santuurii wala kulli wala soo fi shakal kolo bal yarada xafiiska tirada bal soo keen yaa la isku keen leega waa joogta talyaani waa fadhiya fadhido dhawaa la fadhiya wax maqan male santuuq u horeey waa la furay leega day joobana Soomaali leega day joobana Soomaali ku dhamaada صندوق نوفسر لا هالشيء صناديق دي ما كان أول آخر ما كان سوق هذا ما هو دريمة صناديق دي أردن ولا تري لا قد الجوب أنا سوي ملي كل مات وليست أونيكا تلياني هالكا سوق هذا كون سجال بقول لحدنك دور شدي ليست أونيكا نقطة هرت لا كوجوليس محد عايز كذب وحد عايز حاجة معناها إنجليز كان حاجة وكتجي وغوي وكتجي لحية لبعتنك جود وعالنك الصومالي وهري وعالنك بلوج وحلك حدك لحد سنجس سنت جس لا أول السورة هرجس وهري كود اللول ينا كوفورة لقتها لح ساعوها بين ممركيه يا عالنك اللي صار عالنك بلوج يا لا صار كي تلياني أنا أقول كلا النصار كنسيب ومركب تم عدلية تلمون وعالن كيو بتدي بلان إيجا كنسيب كنصار deegaanada marka ugu facaweyn gadaya waxa kamid degmooyinka luuq iyo baardheeray iyo toolo oo kale marka fiirsi garbaare oo kale waxa ugu facaweyn marka la yiraahdo deegaan ahaan la hordegay luuq baa degmada ugu horeysa la hordegay waa gas باردة ومقالو بنادم باردة مرة على الدقيقة دولونا أيضا وسوكله لكن كربهاري كون سأل طلبات تاني سد حديامر أنا قبل السنيبر وهذا هي قدوميها دولة هوسيدك مثلا أنت بدن بواسس كهراء ما أنت ضد كل شيء أنت بدن أي ما أنت المصير لين هذا بحي أنا بروك هذه أجوسي بلوجي مركب مالك أصبر له قبل لا بيسي ترسي أهم دقمة أنت لكيد قولي هذا يباص ويرد أد بيويرد أنت لكيد قياس أد قياس تاريخه
500 oo guri ma gaari 500 oo guri gaaris markii u baahan 500 oo guri isbedelo fara badan bacay xilligii dagaalkii Ethiopia iyo Soomaalida degmada waxa maqalay in la duqeeyay oo aad loo duqeeyay taas oo bixinaysa macnaha dagaalkii waa isku dhacnay hadee xuduuday ku taal waana la degan yahay hada dhacday markaa laba madfac dhaxdooda shacab ma jiri karo waa la raray degmada waa la raray geed weynaa la geeyay sifa degmada sifa degma lagu magacaabo sifa waxa waliba ku magacaabay degmada wuxuu ahaa Ali Samatar Samatar ayimada waa degmada waa halkaas soo yiri xagga la aado waa la guuray xuduudka laga tagay bal maanta degmada dowladda Soomaaliya aad ay u balaartay way fiday ilaa iyo waxay maraysaa dhowr iyo 10 kiiloomitir bay hadda maraysaa bal iska hor isbedelada hadda nabadda iyo deegaanka hadda qofkan hadda doolo aqoonin warbixin ka sii meesha ka soo bilaawatay meesha marayso waxa weeye doolo taariikh badan oo soo maray taariikhaha badan oo soo maray maanta taariikhda hadda aan joogno dhowr kan sano midaan joogno macnaha tu waligeed tu macnaha ahaan jiray ma ahayn tu tiik macnaha ka hormarsan oo macnaha degmadii ay balaaratay oo nabad jirto oo airport ay leedahay diyaaradaha caalamka ay soo degaan taas oo macnaha ilaahay keenay laakiin laga shaqeey maamulkii markaas jiray ay ka shaqeeyeen ragna ay u dhinteen si fiican sidaas ayay degmadii ku balaaratay ayna tahay hadda markii dhan loo fiiriyo meesha ugu nabadda badan inay tahay degmada doolo Soomaaliya hadda adiga shaqooyinkii dawladda iyo dawladaha hoose iyo ma qabatay shaqooyinkaada gooniya iska qabsata waxay ugu maqaalaha xilliga hadda dawladda hoose marka aad ka shaqeeyo kale markii boos la isku qabsado 85 la bixiyay in aad lagu yeero saa u kala bixisay bal arinta see u kala bixisay qaabkee see ku xasuusanay boos 30 sano ka hor aad bixisay qaabkee ku xasuusanay waxa weeye way fududahay dhulka waan bixinay waxa qaab sharci ah aan ku bixinaynay anaga si fiican yani meesha hadii meel oo basiiba tahay hadii oo basiiba tahay yani dadka anaha arajidu soo qortayna ay badan yihiin waxa loo diray ninka injineerka macnaha dawladda hoose injineerkeeda dhulka soo cabira la lahaa cabirka guud markuu keeno jangooya lagu sameyn jiray inta qof oo u baahan haddii macnaha doodisha bardoodisha macnaha ay u gaaraysa waa doodisha bardoodisha loo gooyna maya doodisha waa 12 haddii badan yahay macnaha jingo barkwatar hadana la leeyahay dadka badan yahay oo goob ganacsi ay tahay 5 dareere iyo 4 gudaha goob ganacsi 85 boos agoysay waxa xasuusna لا دتك والد قفك مركز تقاني قفك مركز أنت تقاني لا كادو مما قفك نعس كجري وأنت قناة قفك أنت كجري والكل والله يقال والله هذا النظام كهذا الشقية أو دولته هو سوكله كورنا سي وشقي سوا إسلام ما كان في شيء تيني هو رقاب كل شقي جتي مدة هذا الشقية نسمع حاجة بدل معناها إثبدل وين أو ده محاكمة أنا وحنا هنا شرعية نظام دولي كل شقية يعني يونيفورم معناها قونية له دولة وصلة فاهم يعني فيتشل أوربانا اللي هذا معناها وسراكيش السوق معناها سراكيش السوقوي سوق ها شغله وإني سوق كان مرة عشور نظافة دي فشقينا أي تاع هذا معناها أنا هذا قابك لو شغال قابك هذا ما واحد يسوق ما بقى مقنت هايبة دولده هو سوى كم مقنت هاي دقمة دولة كم مقنت محاكم حد إسلام هاي وهذا ضد فرت أو في قصة إسلام كوي له وحياة سامقن وحاكم ده يعني ضد هذا دور قف معناها وحبك الأوجين وأنا قدومية حافظت وعدة نوع عاسة يا ودولته وصل لي نظافتها تامية وهي أركان
يعني قشنك واي أجمران وأنا قدوميها دولدوس إنه يهلا أما دولدوس بك شقي أنا لا فد حقي وحبك على مصر دار ما يقانان وحبك ما وأنا مسؤولية كل يوم إليهن وحيابها إذنك يسوحي أوصل شقتك جدا ما كلا جرى عن شرط القاضي يو نافضة وحيابها يكون مهتم بيت أنا وعناها مقايدها فمال أمضي معناها وحكي عنته وقش فرق بدنا يلا والله مالين كستوى له كنترولها قف كان قشك ما أنت المشي قشنك كل ما حتى كان شغالها على كنترولي جركيس أسويها وإنه كان قرنبيون اللي هي وإنه نظيف اللي هي وحلا فيرين في وسط بيها وحلا فيرين الصحون تمعناها هذا يروح جرتها ولو جناح هذا منك مقاعدة لو جناح waxaa soo dhan ma leeyahay hadda way ka maqan tahay magaalada wax control ma leh dibadda yani gabdhaha hadda toobtan shaa ma karisa aag bay inta dhigi biyo ku jireen moogta ani adiga inta afarteena la shaacab goobta la gelina bakeriga meesha waa laga soo bixina miiska la dhiga ma sasba hawi geli gooni la raaciyo geli biyo socda marka ka raaci نظام أنه واحد شقة مركز الدولة ده هو سوى أساسي لكن ما كان دناها هاي شقة كلها ما بيقانا ما فهم سلام هذا ما سي هاي أنت أسأل كسوكوي إنه ورئيس قاس حصها بدنا عن ليه لنا إننا بدون هذا فرح دخل أو كم إذا دتك سيدا وين دقمة الدولة الصومالية اللغة قانو وأنا نين أنت بدون كسرنا لا دقمة الدولة الصومالية حاو كم إذا dadkii taariikhda ku lahaa xilal fara badan ka soo qabtay degmadan sida gudoomiyaha dawladda hoose soo noqday gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka degmadan buu soo noqday xilligii barisamaadka iyo waliba xilligii Talyaanigana wax fara badan buu xilligii gumeysiga uu joogay oo isaga hadda nooga sheekeynayay aad ayuu u mahadsan yahay nabadoon aadan faarax dhuxul khayr fara badan ayaan u rajeynayaa idinka aad u mahadsan insha Allah